waxay ahayd talaabadii abad ugu xumayd ee uu ku dhaqaaqo siyaasi Soomaaliyeed inuu xaraasho dhulkiisa. As foreign minister, I did under my watch negotiate. ugu horreyn waxaan dowladda Soomaaliya ee waqtigaasi ku heshiinay inuu xadka badda labada dal uu ahaado parallel latitude 450 nautical miles. heshiiskan waxaynu geynay EU iyo UN-ka xadkeena cusub. arrintan muddo ayaa ka soo wareegatay kadib markii isbedelo xagga hoggaanka ay ka dhaceen Soomaaliya wayna ku saxan yihiin taasi. haa waa marag cad in dowladda hadda jirta ay ka dhabaynayso doonisteeda ah helidda badda Soomaaliya. Number two, Kenya should heighten its own activities in this particular area. haddii ay Soomaaliya siisay qariirad aysan lahayn sida la sheegay shirkadaha waxbaara waxay ahayd Kenya in iyadana wargeliso cid walba ay quseedo inaysan xadkaasi iyadu lahayn oo keliya hanti waxaa iska leh qofka isticmaalaya. Kenya waxay ahayd in ay baddeeda isticmaasho oo ay saaxiibadeeda ku wargeliso in ay howlahooda wataan halka laysku haysto khayraad inuu ka buuxo ayaan ogahay sida kalluunka toona gaas shidaal iyo kuwa kale. 450 nautical miles maaha dhul yar oo laga samri kara. waxaan kula talinayaa inay isticmaasho ereyo aan caradeeda muujinayn isla markaana wargeliso dunida oo dhan in iyadu ay leedahay biyaha hadda la isku haysto. As far as from here, dowlad kasta oo shacabkeeda ugu adeegaysa sida ugu habboon ayaa ka dhabayn karta oo keliya guushan. xiriirka gobolka geeska Afrika sidaas oo kale meel culays ka jira waa jiraan iyadana waa ka gudbinaa insha Allah haddaan anagu si duubanahay waa ka gudbinaa insha Allah. aanu diyaar garowno si wada jir ah sidii aan dowladda ugu garab siin lahayn dowlad wanaag iyo ana sidoo mid wax liyaado dowladda cala way waxa hadda jirta oo aan idinku diyaarinayno qof walba oo Soomaaliya aan u diyaarinayno mustaqbalka dowladdan iyo shacabkooda inay isla jaan qaadaan. midani waa guushii abad ugu wanaagsaneed ee ay dowladda Soomaaliya iyo shacabkooduba si wada jir ah u gaareen. dhageysiga dacwadda badda ayaa la mudeeyay iyadoo maxkamadda caalamiga ahi cilaamisay bisha September. gacmo wada jir ayay wax ku goyn karaan